Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad ku soo dhawaataan kursigii aan ku baranayay sidaan u samaysan lahayn website lacag la'aan anagoona wax kood aanan qorin. Casharkan waa casharkii lixaad waxaan ku qaadanaynaa qaabka aan menuyada aan u bedeli lahayn. Ugu horreyn menuyada saad arkaysid wuxuu ka kooban yahay menu caadi ah iyo sub menu. Sub menu-kii ayaa waxaa jira sub menu kale ka samaysan. Marka waxaan rabnaa waxaanan u baahnayn in halkan aan ka tirno waxaan u baahannahay in aan ku soo darsano. Si aan meeshan aan wax ugu bedelno waxaan imaanaynaa dhanka server side markaad imaatid meeshan hoose waxaad ka aadaysaa meesha ay ku qoran tahay theme markaan dhahno waxaan imaanaynaa meeshan ay ku qoran tahay customize agteeda calaamadda falaarka hoos aadan ayaad kala garanaysaa kadib waxaad halkan ka dooranaysaa edit html. edit html markaad dhahdid waxaa soo baxay yani meel koodad ku qoran marka menuyada kaliya ayaan rabnaa in waxaan ka bedelno marka waxaan raadinaynaa menuyada si aan u raadino haddii halkan aan dhahno mid ayaan u eegaynaa waqti ay qaadanaysaa yani kama gaarno balse waxaa fiican in inta aad imaatid template-ka aad isticmaalaysid in menuyadiisa magacyada ku qoran midkooda aad ku sirgaraysid sidan ayaa fudud. Marka haddeertaan features ayaa ugu horeeyo home marabo inaan bedelo sidiisa rabaa in iskaga dayo marka features ayaan sirgaraynaynaa waxaan imaanaynaa dhanka server side kadibna meeshan ayaan kala garaynaynaa waxaan leenahay control F markaan qorno qaybta qor waxaa nooga soo muuqday search meel ay ku qoran tahay waxaan u baahannahay inaan halkan aan ka raadino kadib halkan waxaan ku qoraynaa features still capital aan qoraa laakiin haddeertaan aan dhahno features kelmadii features waan imaanay wax yar meeshan aan kala galayo kadibna calaamadda falaarta hoos aan ugu dhigo menu saad arkaysid waan imaanay wuxuuna ka bilaabmayaa in meeshan ay ku qoran tahay halkan ilaa iyo inta ayuu ku eg yahay waxaan u maleynayaa ilaa iyo halkan inuu ku eg yahay marka defka inta ayuu ka xiran yahay ilaa meeshan ayaan u maleynayaa in ay ku ag tahay balse muhiimadda waxaan rabnay inaan ka bedelano marka haddeertaan feature ayaa halkan ugu horeeyay marka asiga ayaa waxaan rabaa inaan ka bedelo waxaan ka dhigaynaa yani waxaan soo diyaariyay intaan menu saddexdan waa sub menu inta kalena waa menu caadi la kala garay doono marka ugu horreyn tutorialkii aan qaato koob ayaan leeyahay yani waxaan diidaa qoraalkaas inaan galo maanta dhan haddaan wax qalday iyo haddii kale inaan sasax ayaan diidaa marka waxaan soo diyaariyayba ayagoo ii diyaarsan tutorialkii waan bilaabnay yani maadaama tutorialkii halkan aan ku qornay waa menu ugu horeeyay marka menugan waxaan rabaa inay ka samaysato saddex sub menu saddexdaas sub menu waxaan sameynaynaa in aan halkan aan siino haddeertaan saad arkaysid meeshan wuxuu dhahay sub menu ayaa ka furmay sub menugan ka furmayna wuxuu ka xiran yahay saan filayo in qaybta hoos ayuu ka xiran yahay marka waxaan sameynaynaa in drop downkan ma rabno aan iska tirno waxaan tiraynaa ilaa iyo drop downkaas ilaa sub menugan aan tirno markaasaan aan u wada doorto waxaan leeyahay control x aad dhihi kartaa ese ahayn delete ama backspace aad dhihi kartaa haddeertaan waan tirnay marka waxaan halkan ka tiraynaa meeshan ay ku qoran tahay ayuu kadibna backspace ayaa leeyahay haddeertaan waxaa laga rabaa intaan inay isqaataan control x aan dhaho inta kan wuu ka xiran yahay sidoo kale intaan way isleedahay marka waxaan laga baahan yahay
in aan sameyno midkaan wuxuu yahay marka midkaan xaguu ka xirmay. Okay, in shortcut aan fiiriyo waxaan imaanaynaa meesha shortcut ku qoran tahay. Okay, intaan uma baahnay, yani waxaan u baahannahay kaliya adii tutorialka hoostiisa ilaa iyo drop down-kan xataa midkaan aan ka tiro uma baahni. Delete ayaan leeyahay. In waxaa meeshaan ku jiro meeqa menu kale adii 1 2 3 3 4 filan macalkan markii loo tiriyo. Marka intaasba ma rabno. meesha ugu dambeysay menu ugu dambeeyay magaciisa aan fiiriyo error page ayaa ku qoran. meeshana waxaan ka raadinaynaa meesha ay ku qoran tahay error page waa halkan. marka waxaan sameynaynaa in aan gabi ahaanba from inta ka bilaab ilaa iyo intaanba aan dhaho iga wada tir ma rabo. haddeetan saan arkayno in errorka gaduudka uu ka baxay. in marka waxaan sameyn doonaa meeshaan inaan bedelno. kan waxaa ku qoran blogger menu koowaad blogger capital aan ka dhigo blogger. midka labaadna wuxuu ahaa saan jeclahay videos. kadibna midka saddexaad windows markaan dhahnay haddeertaan waxaan ka dhammaanay tutorial-ka menuga tutorial-ka la yiraahdo iyo sub menu ka sameysma doonto. Okay, sidoo kale waxaan sameyn doonaa meeshan ay ku qoran tahay service inaan bedelno. waxaan ku bedelan doonaa videos aan iska soo copy gareeyo. kadib halkan waxaan ku qoraa videos ayaan leeyahay. videos markaan dhahno sidoo kale video waxaan noogu xigay. Okay, waxaan URL-kan dheer aan ka soo wada bixino. meeshan waxaan isla leenahay kaliya hashtag calaamada hashtag tami. Okay, kulli waxaan gelinaynaa hashtag si oosan website-yada booqanayo naga joojiyo. mideeda kalena code-kan noogu soo yaraado ilaa meesha waxaa tiraysaa kaliya hajirifta labadaas dhibac dhexdooda laga rabo hashtag inaan gelino. sidoo kale meeshan aan kala gareeyo ilaa inta waxaan leeyahay hashtag. intaan waa sameynay. marka videos waxaa noogu xigay wax kaloo la yiraahdo Microsoft Control+C soo muuqaalka iga dheeraanin. meeshan waxaan ku leenahay Control+V. haddana waxaan usoo laabanaynaa social media markaan imaano copy ayaan leeyahay. waxaan halkaan leenahay waxaan meeshaan dhahaynaa past Control+V markaan dhahno waxaan u maleynayaa inay ii dhiman tahay laba menu. marka labadaas menu saan usoo geliyo kanaan copy gareynaynaa. marka midkaan copy gareysano Control+C ayaa leeyahay. Control+C markaan dhahay laba mar ayaa enter leeyahay. waxaan keenaa meesha ugu koreyso Control+V ayaa dhahe. kadibna sidoo kale Control+V markaan dhahno waxaan sameynaynaa meeshaan ay ku qoran tahay wisdoms inaan soo copy gareeyo. waxaan imaanaynaa menuyada midkooda kuwa ugu dambeeyay. kadibna past markaan ku dhahno kaliya haddeetaan hal xabaa noo soo haray. asna waxaan ku past gareyn doonaa programs saan ayaa leeyahay. kadibna Control+V ayaa leedahay. Control+V markaan dhahno haddeertaan menuyadii waa bedelnay. meeshana waxaan leenahay save markaan dhahno in ay menuyadan isbedeleen in kale waxaad imaanaysaa dhanka user side. kadibna halkaan ayaa kala gareynaynaa. waxaan leenahay refresh markaan dhahno gabi ahaan waxaa loo baahan yahay inay menuyadan isbedelaan. saad arkaysid waxay noqdeen wixii aniga aan soo qornay. marka intaan ayaa naga badan. sidoo kale waxaa loo baahan yahay menu walbo markii la kala gareeyo meel mucayan inuu ku geeyo. haddeertaan kan haddaan gareyno waxba ma lahan hashtag kaliya ayuu leeyahay. asna waxaan ku arki doonaa muuqaalka xiga hadduu ilaaha kaa noqdo macal kuwaanba hal mar ayaan wada bedeli doonaa. mideeda kale waxaan ka baxnay qaybta kore kaliya waxaa noo dhimay meeshan ay comments ay ku qoran tahay in aan ka saarno. waxaan imaanaynaa server side-ka meeshan aan kasoo laabto. kadibna waxaan imaanayaa layout markaan imaano kadibna meeshan ayaan waxaan ka tagaynaa header-ka
midka shalay aan bedelnay ama muuqaalkii hore aan ku bedelnay maaha. Headerka labaad ayaan tagaynaa, kadib meeshan ayaan kala gareynaynaa. Markaan kala gareyno meesha ay title-ka ku qoran tahay magacaas aan iska delete gareyno, kadibna save ayaan leenahay. Save markaan dhahno hadeertaan qoraalkii meesha ku qornaa oo comments-ka uu ka baxay, kaliya waxaa meesha ku akaa doono ama kasoo muuqan doono sawirkan in saan filayna qaybta sare inaan ka dhamaanay. Waxa kaliya noo haray waa qaybta dhexe. Muuqaalkan halkan uu ku eg yahay. Videoga xiga intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.